asxaabta waan idin salamay maanta waxa aan idin wada xalqadii ugu dambaysay ee soo baxday manhwadii ina socotay marka dadka qaar waxa ay moodayaan in ay manhwadu dhamaatay manhwadu may dhammaan ee way socota 7 cishona hal xalqad ay soo degta ama ma soo degtoba marka insha Allah waxa aan rajaynayaa in aan manhwa kale ino bilawi doona subscribe iyo like na ino sara kuna saliya nabiga Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ino bilaaba markuu arkay Gong Chong isla markiiba wuxuu bilaabay inuu ku faano isagoo ku xoorkoonaya guusha wejiga kooxda wuxuuna ku faanay in walaalkiis uu yahay mid ka duwan dadka caadiga ah ardaydii ku xeeraynaysay waxay ku yaabayeen iyagoo si hoose u sheekaysanaya in nadiifinta Dongyeon heer keligii ay tahay heer aan la barbar dhigi karin dhibkooda dadweynihii way sii waalanayeen iyagoo ku buuxinaya Gong Ting ammaan xooggiisa halyeyga ah iyo quruxdiisa inta Gong Ting uu si tartiib ah ugu korayo jaranjarada masraxa Si Chen oo degan ayaa si aamusnaan ah u daawanaya kursigiisa dib u eegis Gong Ting isla markiiba wuxuu xasuustay heshiiskoodii qarsoodiga ahaa ee godka mugdiga ah halkaas oo Si Chen uu u soo bandhigay kaalinta koowaad si uu u helo dhammaan lacagta abaalmarinta ee 1 milyan wuxuu si cad u xasuustaa shartii keliya ee Si Chen inuusan qofna u sheegin beddelka fasalkiisa jinka ee qarsoon hadda Si Chen wuu daawanayaa si aamusnaan ah isagoo xiisaynaya sida saaxiibkiis tartanka ugu maamuli doono iftiinka la xaday laakiin isagoo hortaagan dadweynaha weyn Gong Ting waxaa ku dhibaya digidda adag ee aabihiis inuu sameeyo hadal quman oo muujiyo qofka uu yahay ku dhawaaqayaashu waxay si diiran ugu soo dhaweeyeen Gong Ting inuu hadalka guusha ka jeediyo dadweynihii isla markiiba way jecleeyeen iyagoo ammaanaya quruxdiisa iyo sharaftiisa isagoo ugu yeedhaya halyey dhab ah oo soo koraya waxay si hoose u sheekeeyeen inuu yahay dhaxal sugaha u qalma qoyska Gong ee haybadda leh oo mustaqbal aan xad lahayn u yaal taasoo Gong Lin oo kibrin leh u qosolay hoos u eegaya qoraalkiisa Gong Ting wuxuu si qadhaadh u weydiiyey haddii sharaftan la xaday ay tahay waxa uu dhab ahaan istaahilo wuxuu ku bilaabay isagoo qiraya in guddoomiye ku-xigeenku uu sax ahaa ee ku saabsan falalka geesinimada leh ee badbaadada dagaalka aan rajo lahayn badbaadinta kooxda iyo dilka maamulaha laakiin markaas wuxuu soo tuuray wax yaab leh isagoo daaha ka qaaday runta wax ka mid ah falalkaas halyeyga ah ma ahan kuwiisa sababtoo ah dhammaan waxaa sameeyey Si Chen qirashadan kediska ah ayaa qof kasta ka yaabisay iyadoo Si Chen iyo Car labaduba ay hadal la'aan noqdeen markuu maqlay Gong Lin wuu waalay isagoo cadho weyn ku jira markuu arkay wiilkiisa oo tuuraya sharaftii qoyskooda si taxadar leh loo diyaariyey Gong Chong ayaa argagaxay isagoo ku qaylinaya la'aan rumaysad ah go'aanka walaalkiis halka ardaydii u dhoweyd ay si hoose u sheekaysanayaan iyagoo wareersan Gong Ting wuu sii waday isagoo sharaxaya in imtixaanku si qalad ah u dhacay kormeerayaashii la garaacay oo isaga iyo Si Chen keliya ay hadheen si ay uga horjoogaan khatarta wuxuu ku ammaanay Si Chen inuu yahay dilaa dembiyo leh oo caqli badan halyey ku guulaystay mawjado xayawaan heer sare ah isagoo isticmaalaya karti iyo dareen keliya daawashada dagaalka saaxiibkiis waxay tusisay waxa xoogga dhabta ah ay tahay isagoo qirtay inuusan weligiis arag heerkaas xoog wuxuu magacaabay Si Chen inuu yahay guulaystaha xaqa ah taasoo ka dhigtay geesigeennu inuu ku faraxo sida saaxiibkiis tartanku uu ilaaliyey fasalkiisa jinka ee qarsoon argagax ayaa si dhaqso ah ugu faafay goobta iyadoo dadweynuhu ay su'aal uga jawaabayaan daacadnimada akadeemiyada iyagoo la yaaban haddii natiijooyinka rasmiga ah laga beddelay bilowgii si kastaba ha ahaatee halkii uu xanaaqi lahaa Car wuu qoslay isagoo aad ugu madadaloocay dhacdadan wax ka beddelka ah isagoo ka faa'iidaysanaya fursadda Mong iyo Shang Zuo waxay dalbadeen baaritaan dhammaystiran iyagoo ku qanacsan in imtixaanku loo beddelay si ay u xanibaan saaxiibkood isla wakhtigaas asaasayaashii guild kuway aamuseen iyagoo ka fikiraya khalkhalkan kediska ah ee dhacdadooda si taxadar leh loo qorsheeyey Guan Yuan isla markiiba wuxuu dalbaday jawaab ka timid Gong Lin isagoo sheegay in dadweynuhu ay istaahilaan sharaxaad cad oo ku saabsan khalkhalkan laakiin isagoo diiday inuu wajaho ceebtaan cad Gong Lin wuu qoslay wuuna ka baxay xafladdii isagoo ka tegaya wareerkii gadaashiisa isagoo keligiis ku taagan masraxa Gong Ting wuu jeexjeexay hadalkiisii diyaarsanaa isagoo go'aansaday inuu joojiyo aabihiis inuu noloshiisa ku taliyo gudaha xafiiskiisa maamule Yuan Long wuxuu daawanayaa shimbiriisii ugu dambaysay oo duulaysa taasoo ka dhigan doorashada Gong Ting ee ah inuu ugu dambayntii qabto jidkiisa isagoo daawanaya shimbirta oo xor u soo duulaysa maamuluhu uu qoslay isagoo ku faraxsan in ardaygiisu uu helay jidkiisa Gong Ting ayaa markaas u qirashaday Si Chen dhacdadan isagoo si tartan ah u qoslay wuxuuna u ballan qaaday in marka xigta uu noqon doono kan sare si aad u fahamto waxa xiga waxaan baranaynaa in shabakadda caalamiga ah ee kumanaan guild ah ay u qaybsantaa 5 heer oo ka bilaabma heerka ugu sareeya ilaa heerka caadiga ah inkastoo guildiyada heerka sare ay yihiin kuwa ugu fiican guildiyada elite ka ah waa xadka dhabta ah ee awakeneryada xoogga leh waxayna jiraan hal laba oo keliya adduunka oo dhan oo uu ku jiro guildka Imperial
dhanka sagxadda shaqo qorista ardayda caadiga ah waxay si bareer ah uga baryayaan shaqo qorayaasha inay eegaan warqadahooda. nasiib darro guildka Divine ayaa isla markiiba uu diiday iyagoo sheegay inaanay shaqaalaynayn fasallada taageerada sanadkan waxayna u sheegeen inay baxaan. suuqa shaqo ee adag ardayda caadiga ah waxay ku dhibtoonayaan inay helaan hal dalab. laakiin wax walba way isbedelaan haddii lagu martiqaado guild elite ah. wax yar kadib maamulaha ee guildka Imperial Carleston wuxuu gacan ku siiyey Mong shahaado shaqo isagoo ku soo dhaweynaya safafkooda sharafta leh. mataanaha Shang Zuo iyo Shanayu waxay u dabaaldegeen boosaskooda qaybta cilmi baarista. Mong oo argagaxsan ayaa ka walwalsan shaqadiisa cutubka dagaalka. markay soo dhaqaaqeen xarunta weyn kooxdu way ku faraxsanayeen inay ku biiraan mid ka mid ah hal laba ka guild ee elite ka ah adduunka. meel u dhow arday kale oo fasalka ah ayaa si qadhaadh uga shalaystay iyagoo isku laaya sababta ay u diideen inay ku biiraan kooxda Sichen markay fursad heleen. xataa Gong Chong ayaa cadho ku jira isagoo ka baqaya inuu maalin kasta arki doono isla dadkan goobta shaqada. dhanka kale wiishka fulinta Titan Ming ayaa weydiiyey horarka shaqo qorista isagoo bartay in dhibcaha laba jibaaran ay ballaadhiyeen qaadashadooda sanadkan. markuu wiishku furay si uu u muujiyo Carl, Titan Ming ayaa si diiran u soo dhaweeyey guddoomiye ku-xigeenka wuxuuna weydiiyey hadduu sidoo kale booqanayo shaqo qorista. Carl wuxuu sheegay inuu u yimid si uu qof uga dhaadheeyo taasoo Titan Ming uga dhigtay inuu garto in hogaamiyaha isbahaysigu uu si dhow u eegayo qoristooda cusub. Carl wuu qoslay isagoo qirtay in guildka Imperial uu helay karti caadi ah oo uu ka dhigay midka ugu sarreeya darajada. haddaba xafiisyada diiwaangelinta Carlson wuxuu eegay xogtiisa wuxuuna ogaaday in hal musharax oo dambe uusan weli soo gudbin warqadiisa. isagoo xanaaqsan maamuluhu wuxuu u yeedhay Mong isagoo weydiinaya sababta cusub ee ugu fiican si Jen uu wakhtiga ku lumiyey oo uu hakiyey geedi socodka. markuu gartay in hogaamiyihii uu maqan yahay Mong si degdeg ah ayuu u eegay qolka dadka buuxa isagoo si argagax leh ugu yeedhaya saaxiibkiis. isla markaas si Jen wuxuu si caadi ah u soo laabtay isagoo ka yimid nasasho musqul waxaana ku qayliyey saaxiibadiis argagaxsan. markuu arkay hakadan Carleston wuxuu ka cabay kibrinta ardayda cusub ee u malaynaya inay adkaan karaan. shaqo qoruhu wuxuu u xasuusiyey ardayga qalinjabiyey in xataa kan buuxiyey dhibcaha uu tahay inuu raaco xeerarka wuxuuna ku booriyey inuu degdego oo uu la saxeexo. si Jen iyadoo aan waxba ka labalabayn wuxuu si degan u sheegay inuusan qorshaynin inuu ku biiro guildka Imperial taasoo saaxiibadiis argagax weyn gelisay. diidmadan kediska ah waxay soo riday mawjado naxdin leh qolka iyadoo Gong Chong oo kibir badan uu hadal la'aan noqday. howlka intiisa kale waxaa ka baxay qaylo iyo sheeko iyadoo qof kastaa la yaabo sababta Awakener caqli leh u diidi lahaa dalabkan taasoo xataa madaxda guildka ee ugu sarreeya ka yaabisay. Carleston wuxuu si cadho leh u garaacay miiskiisa isagoo ku qaylinaya inay u diyaariyeen boos sare oo sharaftiisu ku taal fursad ay kuwa waayeelku u dhimanayaan. si kastaba ha ahaatee si Jen wuxuu maamulaha u xasuusiyey inuusan weligiis ogolaan inuu ku biiro taasoo ka dhigaysa shaqo qoruhu inuu cadhaysan yahay wuxuuna weydiinayaa sababta uu joogo. markuu arkay qalalaasaha Carl Caindish ayaa soo horbaxay isagoo u arka wakhtiga mid ku habboon. inta dadweynuhu ay aqbalaan hogaamiyaha halyeyga ah ardaydii ku xeeraynaysay way foorarsadeen iyagoo la yaaban waxaa keeni kara guddoomiye ku-xigeenka isbahaysiga adduunka ilaa hoolka diiwaangelinta. Carl wuxuu si toos ah ugu jeestay si Jen isagoo u soo bandhigaya beddel guildka Imperial wuxuuna weydiiyaa hadduu doonayo inuu u guuro San Hafen isaga. xataa wuxuu u ballan qaaday inuu si shakhsi ah u magacaabi doono Emberstar Knights taasoo Gong Ting iyo Titan Ming labaduba ka yaabeen. isla markiiba hoolka waxaa ka baxay qaylo iyo sheeko markii la sheegay magaca Emberstar Knights magac sida caadiga ah loogu talagalay cinwaanada warbaahinta caalamiga ah. ardaydu waxay si hoose u sheekeeyeen in ay jiraan 6 guild oo heerka ugu sarreeya oo caalamka ah oo ay ku sheegaan inay leeyihiin awood ku filnaan inay wadan dhammaystiraan hadday doonaan. si kastaba ha ahaatee si Jen diidmadani kama dhaqaajin wuxuuna si edeb leh u diiday isagoo sharaxaya inuu dhab ahaan u joogo si uu u qorolo saaxiibo kooxdiisa. markuu maqlay Mong iyo mataanuhu way istaageen iyagoo naxsan iyagoo garanaya in saaxiibkoodu si uun u aasaasay kooxdiisa. Carleston ayaa ka qaatay kaarkii isagoo ku majaajiloodaya fikradda arday cusub oo maamula koox isagoo akhrinaya magaca Black Raven Guild si qosol leh wuxuuna ku qayliyey in diiwaangelinta guild cusub ay tahay mid xadidan qaali ah oo u baahan gudbin rasmi ah oo uu arday cusubi weligiis heli karin. maamuluhu wuu qoslay isagoo weydiinaya sida wiil iskuul ka soo baxay oo aan taageero lahayn uu u sameeyey waxaan. si kastaba ha ahaatee miiska soo dhaweynta ayaa si dhaqso leh uga jawaabay iyagoo xaqiijinaya in xogtu ay ku qoran tahay guildka Black Raven oo ah hay'ad sharci ah taasoo Carleston ka yaabisay. xogtu waxay xaqiijisay in guildka la diiwaangeliyey May 1 la ansixiyey June 1 waxayna si Jen u qoran tahay inuu yahay wakiilka sharciga ah.
markuu maqlay taariikhda diiwaangelinta, Gong Ting wuxuu sameeyey xisaab degdeg ah, wuuna la yaabay jadwalka. wuxuu garanayay in Si Jen uu horay u aasaasay kooxdiisa bil ka hor imtixaankoodii qalinjabinta. Si kedis ah, wax walba way caddeeyeen. Si Jen waxa uu danaynayay oo keliya inuu ku guulaysto abaalmarinta lacageed si uu ugu maalgeliyo kooxdiisa cusub, ma aha inuu doonayay sharafka kaalinta koowaad. bilowgii, guildka Imperial weligiis ma ahan mid Si Jen danaynayay, maadaama uu diiradda saarayay siduu u bilaabi lahaa kooxdiisa. markay eegayeen ardayga degan, shaqo qorayaashu waxay garaneen in Si Jen uusan weligiis doonayn ogolaanshahooda, maadaama uu ku shaqaynayo heer ka duwan. Car wuu qoslay islaftiisa isagoo xusaya in Si Jen iyo walaashiis ay isku miro yihiin, labaduba waxay leeyihiin dabeecad madax bannaan oo xoog leh. Si Jen waxa uu xasuusiyey qof kasta in guildku u baahan yahay ugu yaraan 2 xubin si uu u dhaqan geliyo Dungeons, isagoo sheegaya in kooxdiisu ay hadda leedahay isaga oo keliya. isagoo u jeestaya saaxiibkiis tartanka, Si Jen wuxuu u soo bandhigay kaadhi qoritaan, wuxuuna ku martiqaaday Gong Ting inuu noqdo xubinkiisa ugu horreeya guildka Black Raven. asxaabta, halkan ayuu ku eeg yahay manhwa geena. weli ma ay soo bixin xalqad kale. waxa aan raba in aad kommentiga iigu soo qortan manhwada aad rabtaan. manhwada ugu leegta badnatana waan soo qulasaynayaa 3,100 qof oo keliya ayaa inooga dhiman. waxa aan rajaynayaa in aad videogan inagu gaadhsiisan insha Allah.